مسوم الله وانا قصدو سدكي مني ما سري ذاقلي سالك ديقاي سما قارن كويه حرني مسوم الله وانا قصدو سدكي مني ما سري ذاقلي سالك ديقاي سما قارن كويه سيادي نبدا سوغانو برواقة كسور سوماليلان الله سيادي نبدا سوغانو برواقة كسور سوماليلان دحان كسونا قربها سندو runtabaa kasal kacay runtabaa kasal kacay hankii sitee daxaan ku sugnaa qurbaha sanado runtabaa kasal kacay runtabaa kasal kacay hankii sitee abda sooliyo sanaag tagayo ayaa sar togdheer subaxo moluhigu simaysa badi berbera بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داوضي يالد لهانتين بميلكستو الدنيا دعالة إذا كتشوكتان ومركلة إيا برنامج كيني آلابا نوغا براتين إيا داوشا إيا ديغان أو تضباط كان ينكو فلنقين دونو أما بديرة داكو ساري دونو saamaynta uu geedka garawaaga loo yaqaan uu ku yeeshay deegaanka gobolka Daadmareed iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay maalinta ka dambaysa uu geedka garawaaga ku sii xoogaysanayay kuna sii xididaysanayay deegaanka gobolka Daadmareed ayaa uu ku sii kala darnaa deegaanada hoos yimaada gobolkani tuulada beerato ka tirsan deegaanka gobolka Daadmareed uu si weyn uga qaaday dhulkii daaqsimeedyada dhul goobaha biyaha ka cabayeen iyo waliba goobaha deganaayeen iyadoo ay geedkan garawaaga cabasho waxoogan ka muujiyeen cod dheerna ku shaaciyeen in haddii aan wax loogala qaban sida ugu dhaqsaha badan la ay wadanka uga qaxayaan taasoo ay habeenkii u galaan bahalaha kala duwan ee duurgaleenka gobolku markuu dhacana aanu qof quriyata banaanka uga bixin haddaba dadweynaha ku dhaqan tuulada beerato ka tirsan deegaankani ayaa mar aanu booqanay waxa ay noo shaaciyeen in geedkan garawaagu ay u galaan bahalaha kala duwan ee duurgaleenka taasay ubadkooda uga baqaan inay ka cunaan iyo lafahoodaba waxaanay baaq dheer u soo jeediyeen wasaaradda dhirtiya daaqa iyo xukuumadda Somaliland cid kasta ay khusayso arrintani in ay sida ugu dhaqsaha badan leh wax kala qabtaan iyagu oo ay tilmaameen in ay dhaaftay intii ay wax ka qabanayeen ayna ka qaban kari waayeen xoolahoodii iyo xoogoodii iyo nafahoodiiba ay raaceen sidii ay geedkani ula dagaalamayeen waxaanay qurba joogta gobolka Daadmareed meel kasta ay daafaca caalamka kaga sugan yihiin ay ka codsadeen in ay sida ugu dhaqsaha badan leh gacan uga geystaan cidhibtirka garawaagan oo saameyn xoogan ku yeeshay deegaankooda kuwan iyaga oo ka hadlaya arrintaasi beerato halkan weeye geedkan garawaaga ah dhibaatada uu dadkan ku hayo waxa kamid ah in uu biyihii laacay ceelkan oo ahaan jiray ceel maax oo lagu gurmado eeriyadan oodweynoo biyuhu ay tagaan oo caan ku ahaa inuu maax dhow noqdo wuxuu marayaa imka 6 mitir halkii uu 1 mitir ka ahaan jiray deegaankii uu xilay oo dhulkii daaqeenka ahaa si uu naga farasaaray waxa kale oo kamid ah dhulkii la beeranayay oo isagana uu xilay dhibaatadaasu waxaan uga baahanay gurmid wax naga xoog badan buu noqday markaa waxaan dawladda u soo jeedinayaa khaas ahaan wasaaradda deegaanka wasaaradda macdanta iyo biyaha wasaaradda beeraha in ay ka hawl galaan deegaankan haddii kale waxa dhici doona barakac balaayana daaman la qabto ayay leedahay daba la qabto male waxaan u baaqayaa in dadka loo soo gurmado
iskood baa imkaanu bilow iskaa waxu qabsaan ku bilownay laakiin haddii aan gurmad la helin wuu aafadan way naga xog badanta markaa waxaan leeyahay hay-adaha waddanka jooga dawladdu iyadaa xukunta waxaa jira hay-ado badan oo faraxalasho iyo xashiish iyo waxyaabo badan oo maalaayacniya mashaariic ku bixiya markaa waxaan leeyahay ha loo soo gurmado oo hala badbaadiyo dadkan iyo deegaanka xildhibaan Shabcaan Maxamuud Maxamed kana tirsan golaha deegaanka allana dariiqadan beerato waxaan u sheegaynaa dawladda wasaaradda qaranka tabeeraha anagoo markaa ku hadlaya afkii xildhibaanka deegaanka Oodweyne geedkan waxa weeye geed la garanwaa magac kale ma leh imika dhowr sagaashanaadkii baa geed ka horreeyay naga soo magaalada beerato ka soo baxay wuxuu imika marayaa ilaa min halkan ilaa 3 saacadood in loo socdo waxaan lahayn 2 tog iyo 2 mashruuc waaweyn mashruucii xagga toga bariga biyeynayay uu naga farsaaray kii galbeed baan imika isku sii haysanaa isaguna wareera oo wasiirka beeruna maalintii dhawaad markhaatiga ah uu yimi waxaan leeyahay dadkan imika shaqeynaya waa dhalinyaradii magaalada waa shacabkii dumar iyo dhalinyaro ragba way leeyihiin iskaa wax u qabsay ku shaqaysanayaan cid lacag ma siin iyaga ay sabaabulay ayaga gudma iyo hanqolada soo qaatay ayaga maanta shiray oo go'aan gaaray inay geedkan gooyaan haddaba waxaan leenahay dawladda maanta jirta dalka xukuumadda maanta jirta waa inay geedkan sidii loo cirib tiri lahaa ama hay'adaha noogu soo dirtaa annagoo ah golahii deegaanka ee degmada Oodweyne joogaana waxaanu ballan qaadaynaa hay'ado badan baa jira waxyaabo yaryar oo aan maynara qabta inaanu sheegi doono hordhigina doona geedkan inuu aafiya yahay dalku soo socota oo markuu maanta beerato qaato beritana deegaamada kale u talaabi doono sida xaaxi oo kale samo kale gawaamo kale meelaha hareeraha naga xigoo dhan midda kale wuxuu raacayaa ciidda cadda ah ee bacaadka si tiishalambood oo kale ah markaa waxaanu leenahay xukuumadda imika jirta waa inay dhegaha u raaridaa ay hadalkayaga maqashaa deegaanka dariiqada beerato muddo dheer bay soo jirtay muddo 100 sano bay soo jirtay geedkan lama aqoon mar baa jirtay geed kaliya oo ahaa oo meelaha ku arki jirno xoolaha ay harsan jireen maanta laakiin deegaankii ummadii uu ka farasaaray dhulkii la qoday uu qaatay beerihii kale uu qaatay ta kale dib wuxuu leeyahay kale bahala galeen buu noqday waraabihii dacawadii jiifaagii waxyaabo badan baa ku soo dhuntay geedkan oo hadduu neefka halkan aad ka taaganto xagga ku haysto aad meel alla meel aad martay aan heli karayn dhibtaasna way jirtaa iyaduna nagu soo biirtay oo deegaanka iyaduna dhib badan ku haysata oo harka galay habeenkii fiidkii neefka ka gabal dhaxsada badbaadi maayo ilaahay bariyo buu leeyahay waxaan haddaba leenahay hay'adaha yaryar ee waxyaabaha yaryar qabta ee sida kale suuliyadoo kale farxaladoo kale xashiishadoo kale waxaan leenahay weer bal ha lagu daro talada waxa jira marmar hay'adu isugu yimaadaan shir guud ay kulan yeeshaan ha lagu daro geedka garwaaga la yiraahdo si dalka looga nabad guur loogu sameyn lahaa aad baanu u salaamaynaa isaga iyo shaqaalihiisa gurmadka wanaagsan ay ummadda ka dhex wadaan iyo hababka ay u shaqaynayaan waanu salaamaynaa dhammaantood madax iyo minjaba ka waxaan kaloo salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha Axmed Maxamuud Siilaanyo ayaan isagana ka salaamayaa iyo dhammaan madaxweyne ku-xigeenka golaha baarlamaanka golaha guurtida dhammaan tood wixii madaxa dawladda ah ilaa kooda hoose ka salaamaya waxaan kaloo salaamayaa Soomaaliland oo dhan dhammaantii iyo wixii islaamay ummadda islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxa ii xigta dariiqada beerato Oodweyne dhexdeeda ayaa biyeysa waxaan u socon waxa loo kala lugeeyaa hal saac qofka caadiga u soconaya waa meesha keliya ee ilaa hawd guntii oo dhulka Soomaaliland ee ay sheegeen in Itoobiya ilaa iyo meesha la yiraahdo geela ka soo aroora banaano muxuu ahaayay ali jaamac meel kasta ka soo aroora waxa ku ka cabayeen Oodweyne waxkii biyaha qasabada looga dirayay ee ay biyaha looga diray waxa dhacday maanta geedka arkaysan oo halkii ugu gaagaabneed imka dhowr meelood baa laga wadaa shaqada halkii ugu gaagaabneed baan taaganay
5 mitir 4 mitir 3 mitir buu kor u kacay dhirtaas waaba sii socdaa dhulkii oo dhan beri baa la digi jiray bay noqonaysaa haddaan imika wax laga qaban haddaan $100,000 imika iska ururina xataa waxba kama qaban karro intaan imika ma gudbi karro waxaan u sheegaynaa dawladda iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha wasaaradda daaqa qaranka wasaaradaha ku shaqale oo dhan cid alaale cid ay qusayso iyo gaar ahaan dadka u dhashay gobolka daad mareer oo diiday dawlad iyo gudoba ku maqan ilaa iyo jaayadaha kulay tahay in gurmad degdega nagala caawiyo ilaahay baan u mahadnaqaynaa ilaahay baan la kaashanayna cidna waxba ka sugi mayno laakiin dee waddanka Soomaaliland oo dhan iskaashata iyo muxuu ahaayay caawima ka socota dee waxaan leenahay madaxweynuhu ugu horeeye iyo maamulka dee dawladda Soomaaliland dee waxaan leenahay cid ay qusaysaaba waa inay gacan wanaagsan naga siiso oo islaamnimo ah oo gacalnimo ah oo walaalnimo ah oo aanu abaalkeeda ugu qaban doono waayo waa meesha afarta jaaba biyaha looga soo doonayay ilaa wadweyne biyaha u jiray geed kasta wuxuu biyaha markuu xididadiisu wuxuu tegayaa ilaa meel ilaahay wanogi waxay u baahan tahay dhaqaale adag wadooyinka ku bixi maayaan bari min galbeed dhaqaalaha ku baxaya waxa intaa la eegna awood uma hayno ilaahay u baan jabarayna dee waxaanu codsanaynaa baaqaa dheeraanu soo jeedinaynaa xildhibaankii igu horreeyey sheekh aldariiqiin ugu horreeyey ee dariiqada beerato gobolka daad mareer madaxdiisa bari saabkiisa muxuu ahaayey maayirkiisa madaxdiisa kale dhammaantood baarlamankooda gebi ahaan inay baaq dheer jeediyaan oo wax nalooga qabto ayaanu adduunka wawshe anagoo magacaygu yahay Aamin Xuseen Bakoro ka hadlaya tuulada beerato degmadooda weyn ay maxay tahay gobolkooda weyn xukumo waxaanu ka cabanaynaa hadaanu nahay rag iyo dumarba dadka jooga beerato waxaanu ka cabanaynaa deegeed ka aragteen ee shaqal dariiqi iyo xildhibaanadii iyo maxay dadweynihii kaleba ay nagala qayb qaateen imikana halkan aanu ka hadlayno qudhada dadku kuma koobne uu badan yahay dhowr meelood ba lagu kala jiraa rag iyo dumarba waa la garaacanaya iska wuxuu qabsabaa la wadaa bahali baa noo galay bahalkii sare iyo kii hooseba way noo galeen barakac baan ku jirnaa in badanna waanu ka qaylinaynay ariyo waanu iska ururnay lacag waanu iska ururnay يعني waxba waanu ka qaban kari weynaa uu naga taf dheer yahay marka waxaan doonaynaa dawladda Soomaaliland meel kasta ay joogto inay wax nagala qabato hay'adaha dawliga ah ee hoos yimaada dawladda Soomaaliland gidigoodba waxaan u soo jeedinaynaa baaq dheer waayo wax yar oo maynaraho qoliyo horeba sheegeen bay qabtaan laakiin kan waxa weeyaan cudurrada aafada ee dilaaga ah baa noo galo bahal sare iyo bahal hooseba way noo galeen xoolihiina way naga mariyeen marka waxaan doonaynaa inta ayaan dhawata caruuruhu naga guranaya bahalka noo gala هذا بين والبحر والبوصة دعين توصل دحرة عشان أريو كدلا لحريو كدلا لعبو كدلا عرورتها كحكتها مركا وحن عطسنا إن لقى قبطه إن جرنواجا إن لقى قبطه وح دولة الصوماليلاند مدحوينها يجا مدحوينها كحجينك جمهورية الصوماليلاند أردن ومحاطين إسكاشتوينك مال عد كستا دولتها إن عد كستا دين وحنا قلق قبطه oo baaq dheerna loo diro oo hoosna loo eego oo hadaan tahay tuulada beerateedu inay xukumo gobolka daad mareed in waxna lagala qabtaa baan doonaynaa naloo kaco naloo gurmado halkaanu joognaaba ugu liidata dhulka qaar baan sanada la gelin oo la arag wax ku nool iyo wax jooga wuxuu lagu sheega xoolaha galana ma tirsano marka waxa weeyaan madaxweynaha iyaga iyo madaxweyne ku xigeenka iyaga anagoo salaamayna 100% waxaanu doonaynaa inay waxna gala qabtaan hadaan nahay tuulada beerato oo caawimo noo fidiyaan oo gargaar noo fidiyaan maxay ahayd dhulkii biyo laga cabay hawd looga soo arooriyay galbeed looga soo arooriyay waqooyi looga soo arooriyay magaaladu ka cabaysay hadda barkad yar oo magaalada dhexdeeda ka cabnaa baqdina awadeed waanu ka waalanay biyo dariiq yarba markaan samaysanaba dariiqii waxa awdaya kii xalay baxay ee biyaha ka dhargay markaan waxaan doonaynaa hadii dawladdu nadanaynayso in waxna laga qabto tuulada beerato oo garanwaaga dabargoynta nagu haya in laga caawiyo oo maxay ahaayday xataa hadaan ariyo iska ururnay hadaan hore isaga ururnay hadaan dib isaga ururnaba uu naga tafdheeri waanu naga badan yahay marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland inay wax nagala qabato garanwaaga noo galeen bahalu iyo dilaaga nagu haya marka saasaan noo codsanaynaa bulshadana soo booqatay sharafta waarkaan waxaan wadana waarkaan hawshan haysata maalinkan maanta garanwaaga u soo garaynayo rag iyo dumar aan ku kacaan u taag weynay
dooxadii naga qaaday biyo naga qaaday caruurihii bahalihii ka baqeen xoolihii diideen maalinkan maanta yaa Allah baanu hayno sheeko kale nooma taale garan waagu managaga hadlay sheeko kale ma xuma waanu ladanay waanu wacanay wuxuuna nagaga wareeyay garan waaga waxaa soo raashina u karnaynaa waxa weeye ciidankii maanta shaqaynay iyo kan u soo ururinay iyo kan ugu talagalay waxaanu leenahay bulshada wacan نعاونيسا هصوب بحضو أنو أرقنو دولة الشعب عاونيسا وين نقعان قبطا داد مدعو بدنيه أنا قوما وحبنا يما كهينا أنا قوما عوانينا وحنا كعبانينا وحوين قرواك هذين والبا أعرفوا دعات طبناف هذا دنافر بحرة الحديثة كلنا قوليها هذين كقف كان حبين اللي والفسيحدو waxaa soo baqaa waxaan ugu aan garan waagana laga qabto wax nooga tara oo dawladda iyo wixii la socdaba ha nooga aan qabtaa hay'adda intay ka tiraan noo soo gurmada waxaan leenahay garan waaga dad iyo xoolaba baqa weyn baan ku leenahay aad buu waxyeelo noogu leeyahay dhulka iyo daaqa xoolaha iyo dulinkaba uu noo leeyahay waxaanu leenahay haddii wax nagala qaban karayo in nalagala qabto in nalaga taageero in maalinka maanta awoodda nalala saaro sidaanu annakuna uga shaqaynayna uga u wadno in nalala wado dowladda Somaliland iyo hay'aduhuba sidaasaanu doonaynaa in nagala qabto iyo gobolka Daadmareer waxaanu leenahay aad iyo aad ayaa baxa haddii marka neefka xoolay halkaa gaadho u cunaya carruurtina waanu uga baqanaynaa ciidaha ayaga inta harka galay ugu soo ciyaan ka soo cararaynaa ugu soo cararaynaa habeenkiina waana miraynaa waxaanu leenahay aad iyo aad awoodda hana la saaro gobolka Daadmareer hana la saaro tuulada beerato hana la saaro bahalka ana caasho maxamed dibad baa la yiraahdaa waxa weeye bahalkaas waxaanu leenahay haddaan dumarka nahay iyo haddaan ragga nahayba waanu wadnaa una taag weyni kaanu maanta goynaa biraad moodaa inuu soo baxayo gunta ka soo onkamayo waxaan leenahay hana la qabto yaa raashinka aanu karinaynaa waxaan u karin raashinkii bahalkii ka soo dadkii ka soo shaqeeyay shaqaalaha ayaanu u karinaynaa aanu u wadnaa waana ka arkaysan hawshan ku jirno sidaas ayaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحويان وحلا إلى هذا جرنوا ومقالة نجا قاضي عروري حوري ونوديرن كرويني تحدي ميلا نو مران ويني ميلا نكعبنا ويني وحويان هذا نمان تقوينا بريبو صوب حيا وحنا نقولي كرهنا وكم وينادي وحنا محيه تأود سعر كره وكبتها وحنا كعد صنينا ومدة هذا هي هذا مدحت هي هذا odayaasha Daadmareer maxay haytay xukuumadda haybayna wax nagala qabtaa in gacantana lala saaro in laga warhayo inaanu magaalada uga qaxnayo inuu nala qabtaa way ka taagan tahay marka waxa weeyaan waxaanu doonaynaa in laga caawiyo meel aanu biyihii marama hayno xaafadihii waanu isu wareegi kari weynay caruurihii xoolii waanu diran kari weynay waraabi baa noo galo dawacadi baa noo gasho baharo dhan baa noo galay marka aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa in waxna lagala qabto عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كهذا تولد بيرته وحافر باس نجوها هي فهل كلا جرواج أبي صدا هاسه فهل كهاسه ورابها ميل الله ميل المرة ما هينو بيلان وحنني كوي جنب وحن قص جنة هرات كنا هيا إن نديرنا بيها الليلة ويصحى مركن كويني بيانو عبنو كويني مجال ذي كان كيجي وحن لنا هاي قبل كتاب مرات إن نجا عويان هرات كنا هيا جرواج إن نجا جران والسلام عليكم الرئيس وحن سلام يا دولة يد وناكسن في Somaliland إن هدي أن هاي مقالة بيرته وحكلام سلام الناس شعب كيجان سويمي إلا دجالما يبهل كجرواج ليلا وحوي دولة يد هاي دولة يد صاحب السياء وكامنا يان كل جود بوحنا قعد سنة إن بهل كجرواج ليلا هذا وسيدو النوح هيستو أما سودل كي نوجا قاضي أي عادي بدن تهاي النوع عن حافظ سووا ريج كرين
annagoo daaqii xoolaha iyo daaqii biyaha intiiba uun cidhiidhi naga geliyey iyada oo bahalkii noo galay mid hoose bahal hoose iyo bahal saraba hadduu yahay waraabe dawaco dee yacnii xawayaankii wax cuni jiray oo dhan oo aan xitaa carruurtii waxba loo diran kara inay soo baqayaan marka dawladdayada barakaysan aad iyo aad baan u salaamaynaa boqolkiiba boqol waanaanu ku faraxsannahay waxaanaanu doonaynaa in bahalkaa aad iyo aadna looga caawiyo oo ay noola hadlaan hay-adaha wax dee samafalka soo wade dee wax kastaba inoo keena ee aynu wax kastaba ugala cabanno inaynu cabashada iyadaa noo soo fuliyaan oo mar walba dee waxaana tidhahdaan geedkan ka hadlo waanu idiin sheegnaayo waxbana nagalaama qabataan waxaanu doonaynaa in dee gacantana lala saaro imaka raashinaa noo karaya maalin walba waanu gurnaa hase yeeshee gudintiiba waxaabay noqotayba baaqbaaq mara kuwa wuxuu doonayaa waxaanu wax ilaa xididka u soo bixiya xididkuna dhulka wuxuu ugu tagayaa dhirtii hore oo dhan wuu ka xidid dheeriyey markaa dhirtii hore way qallashay isagoo kaliya ayaa noolaaday markaa dee waa sidaa assalaamu calaykum waraxmatullah dee ugu dambayntii xaaladan geedka garanwaaga ee saamaynta ku yeelatay gobolka daadmadheedh ayaa ka koy noqotay biyo-la-aanta soo food saartay gobolkani ase uu geedka garanwaagu uu ka qaaday goobihii ay biyaha ka cabeeyeen dadweynaha ku dhaqan gobolkan iyo weliba goobihii ay ku beeranayeen beerahooda daawadayaal guud ahaanba waxaa intaa nagaga dhan barnaamijkeeni daawasho iyo deegaan oo toddobaadkan aynu ku falanqaynaynay saamaynta xooggan uu geedka garanwaagu ku yeeshay deegaanka gobolkani daadmadheedh barnaamijka xiga intaynu ku kulmin doono dhammaantaya waxaan idinkaga tegaynaa waa anigoo ah barwaaqo aadan maxmed salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan dambe oo xiisa leh daawadayaal idilkiinba meel kastoo aan naga dheehanaysaan xornimo sumalla wanaaga sido sadkii midnimo sareeda gale salka dhigaysa maa qaranku yee xornimo sumalla wanaaga sido sadkii midnimo sareeda gale salka dhigaysa maa qaranku yee siyaadi nabada sugano barwaaqo ku soor Somaliland Allah u siyaadi nabada sugano barwaaqo ku soor Somaliland